جمهورية الصوماليلاند وزيرada wakiilka Somaliland ee dalka Mareykanka akhyaarta halkan isugu timi ragga iyo haweenkaba dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inkasta oo maanta aynu isugu nimi shirkii kan ka horreeyey oo mawaadiic door aynu ka wada hadalnay haddana maanta waxaa halkan hadalkaynugu soo celiyey maadaama aanu halkan nimi dadkuna had iyo jeer aynu meel kala fogna joogo inaynu si ballaaran oo qoto dheer usii dhaadhaadno inaynu ka wada hadalno arrimaha maxaanku dhahdaa qarankeenna wasiiradii iga horreeyey siday idiin sheegeen dalka Somaliland maanta waa nabadgelyo wax dhibihii ma jiraan xaaladda abaartana intii wasiiradii hore ay ka sheegeen aad iyo aad bay u fiican tahay maxaanku qoona laga shaqaynayaa madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi uu guddoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland xubno doono golaha wasiirada iyo hay-adaha qaranka ee madax bannaan ay ku jiraan waxa uu heliyay guddigiisa ka kooban baac mushtariga dalka iyo culimada dalka oo iyaguna guddiga kala shaqaynaya arrinta maxaanku dhahdaayey abaaraha ilaa iyo hadda guddidan anigu ka mid ahay waxaynu maraynaa dowladda Somaliland hay-ado yaryar oo kooban oo kaalmo yar oo aan badnayn fidiya oo biyadhaanka ah mooyaane dowladda Somaliland ilaa iyo hadda waxay maraysaa 4 milyan oo dollar oo intooda badan 90% biyadhaanka lagu isticmaalay ceelasha dib u habeentooda ceelal cusub oo ilaa iyo 10 la qoday ayay imika isticmaashay iyo xoogaa loogu sameeyey maxaanku dhahdaayey cunto loogu iibiyey gobollada abaartu ka tagtay waxaan aad loo ogeyn oo intan dhaanta abaar shicibkeenna Somaliland iyo deegaamadeenna qura ku dhacday maaha dalka Soomaaliya gobollada dhexe oo laga soo bilaabo gobolka Dhuusamareeb Galguduud Gaalkacyo Garowe Qardho gobolkii bari la isku oran jiray dhammaan intaasi waxa ay joogaan inta la yiraahdo gobolka Badhan Ceerigaabo Ceelafweyn Garadag iyo in ku dhow maxaanku dhahdaayey Saraar meelo ka mid ah ayay intaasiba joogaan inta dadkeenna la siiyaa iyagana la siiyaa baadama abaari inoo keentay ayaguna maxaanku dhahdaayey dhibaatadaasi ay hayso intaasaa la joogaa abaartu waxay kaloo inala haysaa dalka Itoobiya dowlad deegaanka Soomaaliyeed iyaguna ilaa iyo gobolka Awdal gobolka Gabiley Maroodijeex Hawd gobolka Togdheer gobolka Sool in alaaliye intaasay iyaguna joogaan waynu fiicannay alxamdulillahi rabbil caalamiin waynu isku tashanaynaa taasina maantana in baan idinka dareysiinay waana idin sugaysaana taasina inteeda kale waynu ka wada hadalnay dareemaha kulli jira dareemada jirana had iyo jeer lagama maarmaan waxa in laga wada hadlo waana tii wasiirada qaarkood way sheegeen bal marka ugu horeysa waxaynu ogaanaa dadkeenna maanta caawa halkan fadhiya ee Somaliland dariska ah ee Somaliland ka wada yimi nabadgelyada dalka Somaliland maanta taala waxay inaga badbaadisay dhibaatada iyo colaadda iyo kala qaybsanaanta dalkii Soomaaliya aynu isla ahaan jirnay maanta ka taagan maxay inaga badbaadiyeen Soomaali baynu wada ahayn dhaqan in badan baynu wada wadaagnaa caqiide islaamna waynu wada wadaagnaa waxa arrinkaa inaga badbaadiyey dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday dowlad xumadii ka dhacday dhibaatadii ka dhacday Somaliland bay intaanay imanin toddobaadhanada dabayaaqadeedii bay gobollada dhexe ay Soomaaliya ay ka dhacday xasuuqa ka dhacay dagaalka ka dhacay dhibta ka dhacday
waxaynu kaga duwannahay oo aynu intaa maxaanku idhaahday kaga badbaadnay waxa la yidhaahdo wada hadalka dareen baa jira cid baa wax tabanaysa arrimaha dadka ka dhaxeeya dabadeedna mabaadi'da aasaasiga ee Somaliland ku dhaqata waxa weeye aynu wada hadalno waa kow waa laba aynu wada tashanno waa saddex aynu wixii xalka loo baahan yahay wada jir u gaadhno intaasi waa inta Somaliland aynu ka dheerahay ee aynu kaga badbaadnay waxaynu ognahay aragtiyaynu kala leenahay afkaar baynu kala leenahay xusbiyada dalka ku jiraynu ku kala jirnaa siyaasadaynu ku kala qaybsannahay halkana imika joogtaan marka dalka Mareykan doorasho ka dhacayso maryaha lala kala baxaa dagaalka cirka mara dabadeedna maalinta doorashadu ay dhamaato ee madaxweyne soo baxo halku dhaga qudheen la sameeyo waxa weeye aynu ummadda Mareykan dib ha u midowdo arrimaha siyaasadda sida ugu faraha badan leh ee aynu ugu dhaqanaa waxa weeye waa ka hadeerta wasiir Sacad halkan uu ka sheegay dalalka geeska Afrika ee dalalka ugu waaweyn ee dowladaha ugu badan ee adduunyada ay aad iyo aadka gacanta u siiyaan Ethiopia kamida Kenya kamida oo meelaha dowladaha adduunka reer galbeedka ay xoog saaraan maxaa maanta ka taagan dabadeedna waxa ka taagan in dagaal ka jiro in doorashooyinkii dhibaato ka kacday innaka markaa waxa laynoo qiray maantana waana kii sheegnay in ay innaka systemkeena siyaasadeed systemkeena doorasho systemkeena nabadgelyo oo guddigood ka wada wanaagsan yahay dowladaha geeska Afrika maxaa maanta inala gudboonaynu doonayna waxaynala gudboonay waxa weeye no matter difference-ka aynu leenahay inta uu leegyahay waa siyaasi aniguna xusbi hebel baan ahay anna xusbi hebel baan ahay taasi maaha min qiyaaska la doonayo in qarannimada lagu qiimeeyo min qiyaaska jiritaanka qarannimadeenna waxa lagu qiimeynayaa midnimadeenna adduunyadana taasaa qaran weliba uu ku midoobaa oo midnimadiisa iyo hawshiisa iyo qarannimadiisa lagu qiyaasaa maalinba cid baa talada haynaysa dabadeedna waxaa la rabaa in aynu markaa taladeennana aynu wada lahaano tartankeenna taladeedana de aynu xisaabta u lahaano arrinka labaad waxa weeye oo aynu arrinkaa ku soo galnay waa nabadgelyada waa sidii ay u hadlayeen maanta waa tii la sheegay Dr. Cusmaan waa kii sheegayey miisaaniyadda tirada yar ee leegay Somaliland aynu leenahay boqolkiiba 7 baa waxay gashaa amnigay gashaa adduunyada dal inta in leegay waxeedu gashaa ma jirto tirada yarna waynu leenahay maxaynu kaga duwannahay kale dowladaha aynu jaarka nahay bari miisaaniyadooda waa la kabaa Kenya la kabaa Ethiopia la kabaa Djibouti waa la kabaa dowladda Somaliland lama kabo waxa laga caawiyaa waxa laaliya waxa mashaariicda horumarka waxa laga caawiyaa arrimaha nabadgelyada oo dhan innaka arrimaheena nabadgelyada baysteen aanteen gamba laguma daro innaka ay soo bixinaa ciidankeena mushaharkiisa iyo shaqaalahiisa innaka leh qalabkiisa innaka leh taladiisa innaka leh hadda si loo sii xoojiyo waxa jirta burbur fara badan baa dhacay maanta dowladdu waxay ku guuleysatay in dib loo abuuro oo dib loo sameeyo akademiyaashii biliiska iyo militariga ee lagu tababari jiray layli saraakiisha cadet officers hadda madaxweynuhu wuxuu darajadii soo siiyey in ku dhow 1000 biliis iyo military isugu jira
tirada ugu horeysa ugu soo horeysay imtixaankii laga qaaday waa hablo tababarkii ragga la galay ka badiyey kii tacliinta ka badiyey giddigoodna saraakiil noqonaya wada xidiga qaadanaya arrintan nabadgelyaduna waa halkaa arrinka cusub ee hadda iminka jira waxa weeye axsaabta siyaasiga ururada siyaasiga doodaha ka jira aragtida ka jirta iyo arrimaha ka jira xeerarka dalka ku inta lagu maamulayo waxaa ka mid ah xeer la yidhaahdo xeer number 14 maantana anigu waan idiin sheegay xeerkaasi wuxuu xadidaa oo qiyaasaa oo diyaariyaa ururada siyaasiga ah siday u furmayaan sida ay u soo promote garoobayaan ama ay u soo baxayaan xusbiyada qaranka xeerkaasaa wuxuu dhigayaa in 10 sannadoodba mar la furo xisaabta ururada siyaasiga ah annaka imika qoladayadan halkan aan maraysa wafdigan madaxweynuhu hogaaminayo marna da xukuumaddii dalkaanu nahay marna waxaanu nahay xusbiga kulmiyaanu ka tirsannahay badkaa khamaarkaanu ka mid nahay xeerkaa wuxuu odhanayaa ururada horena waa xusbiyada horena waa inay ururada ka mid noqdaan tartanka marka la galana saddexda ugu soo horeeyo baa noqonaya wuxuuna nu ordaynaa de imika inaanaan harine aanu dib usoo noqono laakiin ururnimadayadii umaanaan furin cid kale oo annakuna xusbinimadayadii dabadda ku haysan mayne badkaa khamaarkaanu ku jirna ururnimadayada xusbinimadayadiina ururnimaday la taalla marka waxaa ogaanaysaan doorashooyinkeennii waxaa lagu qiimeeyey kuwa ugu fiican ee berigii dhowita dhacay waxaanu lahayn heshiis qolyaha European International Community-ga ah odhanaya maadaama miisaaniyadeennu aynu yar tahay waxaanu idinka bixinaynaa 75% kharashka doorashooyinka miisaaniyadiina iyo dhaqaalihiina kale waxba ku dari mayno laakiin doorashadaanu idinka bixinaynaa 75% idinkuna waxay iska bixinaysaan 85%. doorashadii berigii dhowita dhacday ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka international community-gu waxay ka bixiyeen oo keliya $5 milyan 19 milyan bay dowladda Soomaaliland ka bixisay doorashada imika soo socota golaha wasiirada uu hogaaminayo madaxweynuhu kaydna way u hayaan imika kharashka doorashada inta haddayna haddii qoladaasi ay wax nala guuli weydo oo hawsha ay intii hore soo dhaafi weydo ayagana waanu u sheegnay qoladan imika aanu wada hadlaynayna waanu u sheegnay dowladda waxaa ka diyaara inay dhammaystirto oo bixiso tawruradu ku soo baxayaan iyo doorashada madaxweynaha intaba arrintaa markaa dareen fara badan baa ka jira xusbiyada imika jooga waxaa dhacaya laysanka ay xusbinimada ku haystaan ayaa bisha June ama July dhacaya waayo markay ururada qaran soo baxaan guddiga commissionka ah ee xeerka 14aad ku magacaaban ee madaxweynuhu ayaantii dhoweyta magacaabay saddexda xusbiye soo socda liisan bay siinayaan liisankoodaasi waa 10 years 10 sannadood horteedna waxaa la rabaa inay ururadu furmaan si aynan constitutional crisis u gelin si aynay dhibaatana u imanin tartanka siyaasigiina waa inoo xor oo waynu ku soo caanamaalay ilaa 2002 baynu wadnay 8 doorashaynu soo gollay 3 madaxweyneynu ku doorannay si wanaagsan baynu u barannay ummadeennu aad bay u gashay aad iyo aad bay waayo-aragnimay u leedahay waxaynu ku gelaynaa sida xeerku yahay intaynu ku badbaadnay waxa weeye inaynu raacno xeerarkaynu qorannay haddaynu kuwa raaci weynana xamar baynu noqonaynaa cidda xeerarkaa diidanina waa cid doonaysa un qarannimo inaynu u burburno tii aynu ka soo baxnay ee Soomaaliya ku burburtay inaynu dib ugu noqonno arrinta aan ku soo gabagabaynaya waxa weeye
halkan aad joogtaan reer Somaliland baa tihiin Somaliland baa ka timaadeen dabcan gobollo kala jaada ayaa ka timaadeen laakiin qaran qura ka timaadeen anna waxaan soo jeedinaynaa waxaanu idinkula dardaarmaynaa waxaanu ku talinaynaa curfiga nidaamyada dowladeed bini'aadmiguba ay ku wada dhaqmaan in qarannimada ay ilaashataan kala qaybsanaanta bulsha kuma dhisanto bulshadu markay wadar noqoto ee qof ka tagto ee 2 iyo 3 iyo wixii ka badan ay noqoto hab nololeedkeeda waxa ay intaasoo milyan oo sannadood ay aragnimo lagu hayaa in ay ku noolaadaan nidaam wada jir taasaanu idinkula talinaynaa taasaa horumar u noqonaysa dadnimadeenna horumarkeenna iyo maxaanku dhahdaa wada jirkeenna arrimihii kale laga hadlayay xusbiyadii dawal la soo saaray waa dhab arrintiisi ka hadlayso way jirtaayoo had iyo jeer waxaa ka mida saami qaybsiga waxa la yidhaahdo waxaa ka mida maxaa inaga dhaxaynaya horta marka ugu horeysa waxaa la ogaadaa Somaliland haddii aynu nahay waxaynu dalka ugu nimi waxa la yidhaahdaa 6 gobol iyo 23 degmo waxaa la yidhi ama cadaalad ha ku qaybsanaadaan ama yaanay ku qaybsanin ama ha lagu kala gedisnaado ama yaan lagu kala gedisnaanin waxa qura ee aynu ku mintidnaa haysanaa waa inay noqotaa 6 gobol iyo 23 degmo haddaynaan sidaa yeelin maynaan socon karneen maanta laakiin waxaynu u baahannahay in la ogaado wax dowladda wax dadka ka dhaxeeyaynu wada qaybsanaynaana way jirtaa waxaan maxaanku dhahdaa qof waliba uu isu hayaana wuu jiraa maxaa ka mida qof waliba wax isu hayo golayaasha sharci dejineed ee qaranku uu leeyahay cidina cid kama caawin kartee waa codkaaga waxaad ku soo hesho maantana waxaa la doonayaa shukrina waa tii sheegtay ee tidhi maxaanku dhahdaayeen haddaanu haweenkii nahay ururka iyagaanu furanaynaa kaa markii horena ururka waanu ugu taag weynayo waa kuwii istooran waayey sheekada kale ee hadalhaynteedu ay aad iyo aadka u badan tahayna waxa weeye warbahashu beeshan bartanka ku jirta ayay u raran tahay ee dadka inta kale saamigeeda uu maqan yahay marka waxaynu leenahay si uu saamigaas u yimaado beeraha darafyaduna waa inay xisaabtoodii siyaasiga ha yimaadaan oo madaxweynayaashii soo sharaxaan oo hawshaasi ay yimaadaan oo dabadeedna inta kalena iyada dee markaasoo maaha markaa in balanisku uu yimaado oo cid waliba damac yeelato oo cidina aanay cid ku hadlaynin soo maaha Somaliland waxaan kaga baxayaa waxaynu u baahannahay maanta arrinta abaartaa laga hadlayaa maalin joogta subax joogta warbixinteedu u soo baxdaa waxaa laga warhayaa subax walba gobol walba arrintan dhibaatadiisu halkay taagan tahay waxaynu doonaynaa markaa qoladiina qurba joogga hadalkiina iyo taataabashadiina iyo maxaanku dhahdaa shuqulladiinaasi ma yara intaasi qaranka waxba u tari mayso dowladda in la mucaarido iyo in muxaafid loo noqdana laba walba bulshaday ku xidhan tahay laakiin waxa qura ee reer Somaliland naga dhaxeeya waxa weeye qaran Somaliland oo taaba gala oo muddo kala oo carruurtiina halkan joogta iskuulle ay geli kartaa dalkana ay joogaan inaynu wada dhisno kaana hal shay baynu ku wada dhisaynaa waxaynu ku wada dhisi karaynaana waxa weeye waa midnimo qaran oo ummadeed oo reer Somaliland aad iyo aad baa u mahadsantihiin